salaadiinta uqaasha aqoon-yahanka iyo waxgaradka beelaha dega waqooyiga galbeedka iyo beriga magaalada Hargeysa oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay afar qodob oo ay xukuumadda ku eedeeyeen inay ka gaabisay fulinteeda. afartan qodob oo kala ah in Suldaan Xasan, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Cabdiraxmaan aan wax khilaafihi ka jirin suldaannimadiisa iyo in si degdeg ah loo sii daayo salaadiin dhawaan lagu xukumay Somaliland iyo sidoo kale in xayiraadda laga qaado wargeyska iyo qodobka afraad oo ay xukuumaddu ay go'aamo degdeg ka soo saarto deegaano lagu muransan yahay ayaa ugu horreynba waxa goobtaasi ka hadlay aqoon-yahano, salaadiin, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiintii kale ee munaasabadaasi ka soo qayb galay. waxa weeye arrintaasi way dhacday waana fidnaabu la doonayo in laga abuuro gobolka saaxil hadday loo soo noqonatii kale waxa ugu horeysa xukuumadda maanta jirtaa waxay ku ciyaartay oo ay xaqoodii duudsiday oo ay nagu tumatay waxa weeye salaadiinteenii iyo odayaasheenii ayay si sharci darro ah oo gafaawaxay waxa ay sameeyeen oo ay waxay doonaan ka yeeleen sadaradeennii soo jireenka ahayd ee amara walay ayaa waxay doonaan ka yeeleen waxaa jira in la soo cumaafaday oo la yidhi suldaan baa laga dhigayaa beenaalaha qaar been sheegayaana ay soo cumaafadeen aniga wuxuu iga dhigan yahay beri baa ina yeelay waxay ku jira aabaheed aan la iibinayni imika berbera loo socda tikada in la iibiyo waxaa ku yidhi arrimahan guri hoostii iyo meel yaraynu ka hadalno iyo mikrofon yaraynu qaadanno kuma dhammaanayaan xalna lagaga gaari maayo ninkii taa ku biyaabow waad riyoonaysaa waa in laga durkaa cashuurta waa in la joojaa soo maqli maysaa mudaaharaadaan kala go' lahayn waa in la sameeyaa war haddaynu halkan ku dhumanayno dee uu ku arkaya anigu dhulkiisa ah taakayntaa leegoo cid looga ogol yahay ma jirto nabad mooyaane xumo mid loogu ogol yahay ma jirto waa la wada daaqi karaa deegaansi cidina kama samayn karto geelaa la kala qaadi jiray oo goobo kale la geyn jiray dhulkii baa loo soo dhigtay in la kala qaadee dhulka waa lagu dhimanayaa kama ogoli inay cid kale ka taliso laanta cawda ilaa geedu cad kaasi waa dhulka salaadiinta xidhan ee ingiriis iyo tukriyoo ka horreeyey iyo dowladdii afweyne ogeydeena militariga ahayd qof suldaana oo sandalada oo xabsi loo taxaabay oo maxkamad la geeyey ma jiro tan maanta dhacday waa dhafoor taabasho dhiiggiinaa la eegayaa idinkaa laydinku dayayaa wax kaloo ka xun baa soo socda markaa haddaa ka dhiidhii weydaan haddii laga dhiidhii waayo dhab wax kaloo ka xun baa ka imanaya ma ogolin waa xaqdarro waa baadil sandalad suldaan reer caleema saar waxaanu sheegaynaa kale dhallinyaradii laga soo xidhay bariga wixii dhagar galay dowladdu waanu soo afjarray bay tiri waanu soo dhammaystiray bay tiri arrintaa waxay iminka la qabanaysaa garan mayno waxaa laga daba keenay haween carruur haystoo irmaan arrintaasi waa arrin naga fajicisay waxaa dhacay rag maasgaraysan oo afka soo duubtay inay haween gurigooda hortiisii ku dileen oo ku tuureeyeen cid xidhan iyo cid hadaleysa midna ma arag. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo gunaanaday suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Cabdiraxmaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ay qodobada guddiga aan u saarnay arrimaha jira ee beesha Subeer Awal inay ka soo tala bixiyaan oo ay yacni go'aamada ka soo qodobka koowaad madax dhaqameedka
salaadiinta iyo jiif caaqilka iyo dhalinyarada xukunka xaqdarradii ku dhacay xukunka geed hoosti lagaga xukumay ee ku xiran Mandheeraha waa qodobka koowaad oo laga hadlayo waa qodobka labaad dhalinyarada laga soo duubay Berbera iyo nawaaxigeeda ee ilaa maanta aan maxkamad loo horgeeyay iyaduna waa qodobka labaad iyo haweenka qodobka saddexaad ee isaguna meesha yaalla waa qodobka wargeyskana facaweyn ee haatuf oo saddex af ku soo baxa Soomaali Carabi iyo Ingiriisi waa Somaliland Times Khalid Cabdi Maxamed, Space Channel TV, Hargeysa.